adigu taakayamta yes ma jirta arrintan lagu eedeynayo ah in aad dishay 4 wariyaal waliba 3 wariyaal ah adiga intaad studio u gashay gacantaada ku dishay wariye kale tan mar gaar aad dishay waxaan ma dhahay waxba kama jiraan laakiin waxaan leeyahay kama jawaabay السلام عليكم سودوا هذا داود يال هالكا داونا يسمى روكسن ميديا أنا جنا وكوثر عبد النور هذا وح إلى فدية أو مرتي وبرنامج كيجا سفيان شيخ أحمد وإن بدنا وضع عركتين سفيان سودوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كوثر ومحسنتهاي وكل وهي ميري هذا هذا ما سنتهاي سفيان markii ugu horeysay oo aad soo bandhigtay afartaada xaas maxaa falcelina oo aad kala kulantay bulshada Soomaaliyeed well saan hore kugu sheegaba Kowthar bandhigida aan afarta xaas soo bandhigay waxay ahayd arrin aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaato ama aan ku hormariyo siyaasadda islaamka dad ka intooda badani way qaateen way ku farxeen way dhiirigelisay sidii aan moodayay ama aan rajeynayay u shaqaysay way jiraan shakhsiyaad yar yar oo runtii ayagu dadka aan ku jirin oo ayagu diinta islaamka iyo dhaqanka islaamka iyo caadada islaamka ka soo horjeeda kuwaasina waxay wax la filay inay yimaadaan marka sida guud loo fiiriyo picturekaasi ama sawirkaasi wuxuu ahaa success waa tahay markii arrintan ay soo shaabaxday oo social media aad u qabsatay oo marna aad ka hadlaysay arrimaha calanka marna aad xaasaska ka hadlaysay ugu dambeynna aad soo bandhigtay xaasaskaaga oo bulshada u cadeysay in marwooyinkaaga ay yihiin 4 gabdhood waxa dhacday in dad badan ay dabagal kugu sameeyay iyagu sheegeen oo ay dhaheen Sufyaan magaciisa hore waxa la dhihi jiray taakay adigu taakayamta yes taakay waa lagu dhahaa taakay waa naynaas magac ma marka macnaha qofka dhahaya wuu iska bedelay waxa iska qaldan magac iyo naynaas aniga markii la walqalay hooyaday abay magac bay igu walqalay taakayna waxa naynaas bulshada dhexdeeda dhalinyaradii aan ka helay lana igu bixiyay banooniga ciyaartiisa waana magac waa saad fahmi kartid macnaha nin odaya magac u qaata ma marka taakay waa la yiraahdaa waa xaqiiq ma jirta arrintan lagu eedeynayo ah in aad dishay 4 wariyaal waliba 3 wariyaal ah adiga intaad studio u gashay gacantaada ku dishay wariye kale tan mar gaar aad dishay waxaas waxba kama jiraan waa been waxba kama jiraan absolutely adiga wariye ma soo noqotay yes xagee ka soo shaqeyn jirtay raadi muqdisho goorma ahayd 91kii 91kii shaqada ku soo biirtay maya 91kii waxaan ku soo biiray shaqada markii siyaad barre uu baxay 91kii aan ka shaqeynay maxaad qaban jirtay barnaamij noocee ah barnaamijyo kala duwan markii ugu dambeysay aan boofisa ay galeen soo baxayay waxaan ahaa wariyaha gaarka ah ee ra'iisul wasaaraha Umar Artaqali waa tahay maxaa keenay marka in magacaagii iyo wariyaashan oo la dhahayo wuu dilay iyo inaa wariye soo ahayd maxaa keenay arrintan hadda soo shaabaxday runtii waa su'aal aad u fiican waana su'aal aan rabo shacabka Soomaaliyeed inaan la wadaago maxaa keenay waqtigan inay soo baxdo 30 sano ayaa ka soo wareegtay waqtiga isaga 30 sano wax igu daba dhigan cid ay haysata dadkaas ay ka dhinteen qof bini aadan oo igu daba dhigan ma jiro 30 sano noloshaydaan watay reero qurux badan nolol qurux badan waxbarashan ku jiray maanta waxa keenay marka because waxaan wadaa dhambaal ka soo horjeeda qaacido ay wataan westernka barnaamijkan hadda in warkan la yiraahdo waxa wata hay'ad Talyaaniya oo soo adeegsatay hay'adda wariyaasha caalamka oo soo adeegsatay BBC-da oo BBC-da ay adeegsatay wariyaal Soomaaliya sidaas ku timi ujeedada maanta warkan dacaydan loo keenay waxa weeyaan in la dilo dhambaalka aniga aan wada maadaama aniga la dili waayo in la dilo aniga la dilo maadaama la dili waayo dhambaalkii aan wada maadaama dood laga keenay waayo calanka in la bedelo aan banaanka soo dhigay ayadoo xaqiiqo oo dood laga keeni karin calanka Soomaaliya inuu Soomaali sameeyna Talyaani uu sameeyay astaanta qaranka calaamadda Kirishtaanka ay ku jirto heesta lagu calanka loo qaaday inay tahay cibaado loo qirayo calanka iyo shaydaan intaas oo marka banaanka soo dhigo qof Soomaaliya oo igala dooda ama arintaas difaacana la waayay waxa la dili waayay dhambaalkii aan waday marka waxa jirto qaacido la yiraahdo if you cannot kill the message kill the messenger haddaadan dili karin dhambaalka dil dhambaal wadaha waxa marka weerarkii lagu soo qaaday Sufyaan Sheekh Axmed ujeedada loo keenay waa sidaas waa tahay sidaas ka dhalatay waxa ay sheegtaa dadku waxa ay leeyihiin
أنا وعن كم ذا ورياشي إذا عد الراديو مقدشو كشقين جري حلقي دولتي هوري الصومالية مقعي وحلي هذا سعيد آدم علي سعيد أنتينا اللي هذا وأنا كشقين هاي راديو مقدشو أيامي وقدمي دولتي الصومالية أي بربوريسي وعن جوغي توس وجوغي إذا عد الراديو مقدشو إيو حفيزك مدحوينات الله نحرسته محمد سياد بري وعن جعلها مركا تدفر بدن oo dunida dacaladeeda kala duwan jooga ayaa isoo wacayay ayaamaha kan oo dhan waxayna rabeen inay wax ka ogaadaan dilkii la laayay wariyaashii radio muqdisho iyadoo dilkaasi uu geystay ninka la yiraahdo Taakel hadda la soo dhigay Facebook-yada ku jira oo la leeyahay 4 naagood buu guursaday magaciisana bedelay oo Sufyaan la baxay waxaan marka hore u taaseenaya eheladii ay dadkaasi wariyaashaas ay ka dhinteen oo la laayay waxaan marka idin bayaaninayaa ninkan sababta uu u dilay dadkan ma ahayn wax qabiil la xiriira arrintu waxay la xiriirtay إذا عد الراديو مقدشو أيو ربينو نكو كشقيو وهنا كمل ها عسكرتي متقانا ماشا تيمي ولا سعودي جنرال محمد فارح عيديد الله نحرسته وحج على استين وإذا عد كشقيو تدبع مركا وحيكو يرادين سيدا عنوان مقلي انت نمان كان جوغان نيو وحبن نقول ميسن وإن نمان كيسكور لحسا مسألة بسيطة بو كدلي إلهي نحرسنا كورابي رقاس ولايي way kala duwanaayeen waxa kamid aha Abubakar Maxamed Nuur Abubakar wariya la oran jiray nin fiican buu ahaa sheekhaal buu ahaa waxaan anigu isdiidsinaya qabiil inaan afkayga ka sheego yani waa aniga mustaxiil bay tahay inaan qabiil soo qaado laakiin maanta waxaan u sheegayaa inaan dadka Soomaaliyeed u cadeeyo waxa kale siday ahaayeen ninka marka la dilay Abubakar Maxamed Nuur wuxuu ahaa nin sheekhaal buu ahaa ninka kale oo uu dilay waxa la oran jiray ilaahay naxariisti janno aka waraabiye Abdul Qaadir Ali Idli agaasimo aha idaacada radio Muqdisho Abdul Qaadir Ali Idli waxa isaguna ka soo jeeda beesha xawaalaha la yiraahdo xawaalu ka soo jeeda waxa kamid dadka uu laayay ninkaani mahad aadan baa kamid aha Xasan mahad aadan Xasan wuxuu ahaa reerka la yiraahdo ugaadeen buu ahaa Abdi Sheikh Ali ayaa isaguna kamid ahaa Abdi Sheikh Ali wuxuu ahaa nimanka la yiraahdo Arab Saalax ama reerka Arab Saalax la yiraahdo ayuu ahaa waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Abdi Xange waa nin isaguna wariyay idaacada radio Muqdisho waxayna walaal rasmi ahaayeen Abdul Qaadir Juula oo isaguna ka tirsan jiray radio Muqdisho ninkaas ayuu la walaalaha ninkaas Allahu naxariisto ragaas shanta isaga ayaa dilay ninkaas magacyada bedelanaya oo marna Abu Sufyaan baan ayle hada sida lagu helay ku soo baxay waliga islaam heleen Allah subhanahu wa ta'ala sareeyay ilaahay baa ka shafay waayo xaq islaameed iyo dad islaameed buu dilay rabbi waa soo saar isaga baa iskaanay oo doodii ila ku soo istaagay oo inuu gabdho Soomaaliyeed masaakiina afar hal mar wada meeshado oo ma taqaana ismuujiyo oo isagoo la baxay Sufyaan oo isu akaysiinaya muslim isu akaysiin dhigi abwey dad buu laayay masaakiin buu laayay rag wariyaala aan waxba galabsan buu laayay يعني وحوين بوغل جريمة بوغلي يسوون سهل عيار إيو نمان كانوا ويقعد في عينيو نمان كانوا انت يجوغان أنا وحنقون معي بو كدلي
markaasuu maanta soo istaagay oo maanta Soomaaliya wuxuu sheegaya aan leeyahay maxkamadda loo keeno shariicada islaamku ay qabtana sida qabtana ha loo dhaqmo ninkaas inaad adigu Sufyaan Sheekh Axmedow gacantaada ku dishay wariye Mahdi aadan Xasan inaad gacantaada dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Cali Salaad Xange inaad gacantaada adigu ku dishay Cabdi Sheekh Cali inaad gacantaada ku dishay waa sida hadalka loo dhigay Maxamed Nuur inaad gacantaada adigu hadal ku dishay waa loo dhigay Cabdulqaadir Cali Iidle oo ahaa wariyayaal afar ka mid ah isku meel aad ku dishay Radio Muqdisho eedaynta maxaa kaga jawaabaysaa dabcan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan malaynayaa inaad dhageysatay live-kii aan xala soo galay waxaan kaloo malaynayaa bulshada Soomaaliyeed inay ka dharagsan tahay jawaabteeda waqtigan xaadirka ah arrintaas iyada ahi waxaa laga sugayaa dabcan qofkii keenay inuu caddaynteeda soo daba dhigo arrintaasi aniga dhinacayga sidaan xalaba u yiri wax ka jira male marka waxaad leedahay dabcan xalayto waraysigaagii halkaan lagu yisaaniyaa waystay categorically adigu uma aadan denied garaynin oo waxaad tiri waa eedeymo sumcadeeda lagu weerarayo xaqa looga soo horjeedo waa sa hadalka u dhigtay laakiin marnaba maadan oranin anigu waxaan beri ka ahay shanta shaqsi oo la sheegay oo magacyadooda aan kuu sheegay ayaan beri ka ahay hadda fursad ayaad haysataa inta aadan jawaabin waxaan kuu sheegayaa inaan ku daba jiro qoysaskoodii oo aan soo ogaan doono say wax u dhaceen ayagana xogtooda aan soo bandhigi doono kuma lihi waxbaad dishay kuguma eedaynayo caddayn uma hayo meelaad wax ku dishay ma ogi wixii la yiri un baan kuu sheegayaa bulshada ayaa doonaysa inay ogaato soo dhawow wariye Fataax waxaad moodaa inaad too obsessed ku tahay barnaamijkan waxa weeyaan anigu nin mutacallim aan ahay waa fahmi karaa angalka aad ka soo galaysay waxaad iga codsatay inaan waraysi kaa siiyo arrinta calanka arrintan jawaabta kaafiga ay ku dhan tahay waxay tahay inaan ku iri maya arrintaas ma samayn waxaan jeclahay halkaas inaad uga hartid ilaa aad soo heshid caddayn kale laakiin inaad ku celceliso oo aad macnaha wixii hadalkaaga ay ku soo celceliso waxaan ka dhadhaminayaa inaad adigu laftirkaagu eedaynta dhinac ka watid haddii ay sidaas tahay ii sheeg haddaysan ahayn waa kuuga jawaabay su-aasha waxaan ku iri maya ma samayn arrintaas halkaasaan uga gudubno midda ku xigta ku soco waa gartay dabcan sida aan ugu soconayo barnaamijkii sida aan u daadihinayo waxaan jeclahay inaad ogaato inaan adiga kaala tashanaynin laakiin kaala tashanaya oo wax kaa weydiinaya waxa aan ogahay mar kale waxaan kuugu celinayaa walaalow anigu kuma eedaynayo meelaad wax ku dishay ma ogeyn nimankaas la sheegaya dhintay ma ogi wixii dadweynuhu ay ka hadlayeen oo qaarkood ay leeyihiin caddayn baan u haynaa inaan ku weydiiye keliya unbaad iga mudan tahay weli waxaad ku jirtaa arrintii hadda aan kuu sheegay barnaamijka adigaa iska leh laakiin waxa waaye qofka bini aadamka ahi macnaha waxa inaad agitation samayso oo aad isku daydo macnaha wixii inaad dadkii saan iyo dhinac kaga daba gasho waad fahmi karaa waxay tahay macnaheedu waxay tahay marka aan ka gudubno tuduucda su'aalaha aad ii hayso u gudub waxaan ku heshiinaa arrinta calanka iyo astaanta qaranka inaan ka hadalno salaanaa u saartay waxba kaama dhihin ma aaminsani waxaad tiri dadaa usoo dhintay ma aaminsani qof inuu dhintay taas aan galno waa hagaag waa u imaanaynaa calanka waxaan jecelahay insha allahu tacaala inaadan calanka diiday inaad salaan u saartay oodan sanayn waa ra'yigaaga waa kugu ixtiraamayaan ku yiri anugu muwaadin Soomaaliyeed baan ahay calanka buluuga xidigta dhexda ku leh ayaan aaminsanahay una istaagayaa una sacabinayaa garabkiisana taaganahay tayda waa kugu ixtiraamtayda igu ixtiraamaysaa laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxyaalo fara badan oo arrimahan ku saabsan nimankan wariyaasha aan leeyahay waa la jiray waxaad kaloo ku sheegtay سؤالي ويدي سؤال شباب كذا جواب لكن nimankan waxaan propagandadii adina ka sii wadaa I'm not stupid waa fahmi karaa waxa listen I don't think you're stupid at all I don't think you're stupid I'm not let us make no سؤال توسي ويدي you know قالها nimankan you playing to the hands of the enemy
macnaha waxaad ku ciyaaraysaa waxaad subject waxaad ku ciyaaraysaa aniga inaad weli ka qayb qaadato dadkii ku ciyaaraya aniga sharafteyda su'aal toosa waa la yaqaan su'aashaan hadda su'aal ku weydii ask me question hold on lecturing kuguma imaan moogtaa inaad su'aal weydiisaan kugu imid listen if anuu lecture dadka ba uguma imaado adaa dadka lecture garinayo ka hadlayay markaan waraysi kaa ogolaanayay waxaan aqaanaa angalka siyaasad ahaan ee ku saabsan calanka ee aad ka soo jeedo waxaan ogahay inaad difaacanaysa calanka waad caddaysa hadda markaad bilaabaysid kanwi ma uga hadli karnaa si civilized ah oo fikirkayga adoo ga dhigsa adoon isku dayin macnaha inaa disrespect igu samaysidoo beenta la wada iyo warka intaad dhinac ka gashay aad tirahdid nimankaan saalin ha ku celcelinin I don't want that because inaad ku celcelisid micnaheedu waxa weeyaan besmirching my name so ha isku dayintaas mana kaa yeelayo haddii su'aal aan calanka ka hadlayno letis waa weydiiyo su'aal waa kaaga jawaaba su'aal kale haddaa qabtid waa kaaga jawaaba laakiin lecturing no fine marka hore waxay ku fiican tahay waxaad tiri educated man baan ahay oo academic ah and I respect that anigu magacaagana kuma ciyaarinin inaan ku ciyaarana diyaaru ma ihi waxaan ku weydiinayaa guuxa bulshada oo keliya adna inaad ka jawaabto alxaq u leedahay haddaadan ka jawaabin waa ka gudbaynaa now waxyaalaha kale ikaad cami waa hadashay oo ku dhegaystay hawe aqoontii ilaashadii what is the problem No, the problem is, you know, the problem is, have a share, صاحب ترتيب حوش الرصع. problem كله يهاي. وح اسكو ديوسا إن هاد أنجل كاغا سياسة دا أنيجا شكله نقصي ديريسي. أو ساس بالي. Ask me questions. معنا ماشي مو معنا هذا مستوى كلها لكن أيست. ما هي ويدي سؤال. Go ahead سؤالي ويدي. Fine. marka adigu hadlaysay waxa soo qaadanaya waxa adigu tiri waa la yiri iska daa waxa tiri 2 milyan ayaa la ii ballan qaaday inaan qaato oo arinta calanka joojiyo yaa 2 milyan ku ballan qaaday waxay imaanaysaa maalinta oo baaritaankaasi u yimaado ayay imaanaysaa arintaas inaan ka jawaabo hadda maya Soomaaliya ku ballan qaaday hadda ma ka jawaabayo su'aashaas waxaad broadcast-kaaga ku tiri dowladda Soomaaliya agaasimay ii ballan qaaday inay 2 milyan isiiso ma ka noqotay arintaas oo dhan maaha and in fact waxaad samaynaysaa hadda statement oo qalad oo aanan dhihin aniga ma dhihin dowladda Soomaaliya ii ballan qaaday okay maya arintaas waxay ku jirtaa social media qofka u baahan halkaas uu ka dhageysanayaa su'aal haddaad qabtid weydii fine inaad kama ka jawaabtid ma doonaysid waxaad kaloo ku tiri broadcast-kaaga adigu aad live-ka u soo gashay waxaad tiri waxa ii heshiiyey BBC-da wariyaal ka shaqeeya iyo dowladda Talyaaniga hay'ad u shaqeysa maxaad ku cadeynaysaa wariyaasha BBC-da gaar ahaan kuwa Soomaalidu inay adiga ku cadeynaysaa فتاح waxaan u maleynayaa at least inaad xoogaa leedahay some sort of civilized manners su'aalaha qaarkood waxa la isku weydiiyaa meelaha qaarkood hadda waqtigan xaadirka wixii proof iyo cadeyna oo loo baahan yahay ama wax lagu cadeynayo waqtigeedii lama joogo goobteedii lama joogo waxaad igu marti qaaday programkaaga inaad su'aalo i weydiiso not inquisitive maxkamadna ma saarni so please can we move on hore ma uga socon karnaa su'aali weydii fine hore u soconayna adaan ku raacaya okay waxaad ku tiri broadcast-kaaga 230,000 ayay dowladda Mareykanku jaamacad iga bixinaysay maxaad baranaysay oo 250,000 oo u dhiganto 169,000 oo giniga sterlinka today sarif aad ku baranaysay maadada noo sheeg adoo maad mar kale waxaan rabaa waxaad isticmaalaysaa hostile manners you're attacking me معناها معنيهdu ma aha inaan rabin ka jawaab laakiin waxaan rabaa inaan ku dareensiyo inaan fahamsanahay waxaad ka mid tahay ama hadda ii muuqata inaad qayb ka tahay dadka ku faraxsan in aniga magacayga la damage gareeyo su'aalaha aad weydiinayso waa su'aalo investigation waa su'aalo maxkamadeed waa su'aalo baaritaan su'aalo social media ama media looga jawaabo ma aha I'm not under investigation qof baaraay ma laha so kama jawaabayo su'aalahaas waxaan iri waa iri qofkii u baahan baaritaan iyo research markeeday tagaysaa laakiin waxaad ii wacday oo aad ii marti qaaday inaad calanka wax iga weydiiso asagaad aaminsan tahay
waxaan ku ogolaada fursaddan isku day inaad difaacdo ha ku wareegin meel kale waa gartay may anu calanka maba difaacay anu waxaan soo bandhigayaa the other side of the argument anu waxaan ahay neutral laakiin when it comes to the flag I respect that calan 150% and waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaan jeclahay idil qaado Sufyaano arrinta sababtaan ku weydiinayo 230,000 dowladda Mareykanku waxay kaaga bixisay waa hadalka adigu u dhigtay jaamacad sarreysa ee dunida jaamacadaha dunida ugu sarreeya waxaa ka mid ah Harvard University oo Mareykan ku taala highly respected maadada ugu badan $50,000 weeye Cambridge University Oxford University waxaan ka hadlaynaa dhowr iyo 10 maan ka hadlaynaa markaan eegay jaamacaddii adigu aad dhiganayso adigu aad afkaaga iiga sheegtay soo baartay waxay ii sheegeen maado 230,000 lagu barto inaysan jirin ujeedadaan ku weydiinaya saasay ahayd adig kuma weeraraynin inaan ku weeraro diyaar uma ihi inaan ku weeraro igama mudnid aqoon kuuma lihi xumaan kuuma qabo cuqdad kuuma qabo dhibaato imaada geysanin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxa jira that is how I work that is how I roll macalin ama meel kale macalin ha ka ahaado 1991 inuu 4 qof soo dilay waa la soo cadeeyay waana la sheegay marxaatigaasna waxa furaya raggii ogaa oo xilliga joogay maanta wuxuu yiri war beena la iga soo sheegay cadayn baan rabaa muslim baan ahay awal xaasaskayga ahayd maanta naftayda loo soo dhigto ninka waa soo baxay dad buu soo dilay wuu soo cararay Canada yimid Canada intuu joogay gabar buu ku guursaday gabadha uu guursaday wuu xumeeyay wuu ka soo fakaday magacii iyo documentigii iyo informationkii uu Canada ku joogay buu inta qariyay wuxuu iska soo dhiibay Mareykan markuu iska soo dhiibay oo Mareykan yimid Soomaaliya banka imid buu ku sheekeeyay waan soo cararay been buu akhriyay waxa dhacday wuu yimid magacii markaas loo yaqaanay Soomaaliya uu maxaa la dhahaa horay ugu joogay oo uu bedelay oo Sufyaan ku bedelay ayuu haddana waxa halkan lagu dhihi jiray San Diego magaciisa waxa la dhihi jiray ilaahow beerkii baga aadan u dhiman San Diego waxa looga yaqaanay ninka taakeeya looga yaqaanay magaca la yiraahdo taakeeye ayaa looga yaqaanay taakeeyuu joogay ninkaas xillina waxbuu baran jiray beenta ilaah baa caayay ilaah baana dadka yiri cadaab baan u doortay beenta ku sheekeeya waqti ninkaas wuxuu baran jiray iskuul buu dhigan jiray waqtina wuxuu ka shaqayn jiray oo u ahaa bodyguard waxa la yiraahdo security guard ka la yiraahdo oo guryaha hor jooga oo xaafadaha hor jooga ayuu wuxuu ka ahaa xaafada University Avenue ee San Diego USA wiilkii waxbarashadiisa soo u watay halkaas uu uga ahaa shaqaalaha horjoogaha security guard ee xaafadaas uga ahaa iskuulkiisii waxa qasab noqotay in uu aado horta uu yiri waxaan noqonayaa security-ga Mareykan FBI baan ku darmanayaa de security-kana waxa qasab ah inaas luqadda Isbaanishka ku hadashid Spain buu aaday Spain markuu aaday marka hore intuu Spain aadin gabar wuxuu guursaday cayr ah oo ay magaca koro oo wadaagaan qabiilka uu yahay gabadhii uurba u yeelatay gabadhii arooskeedii markuu ka baxay wuu baxay wuxuu aaday maxaa la dhahaa Spain buu aaday 1 year buu ku maqnaa Spanish buu soo bartay wuu soo noqday markuu soo noqday oo FBI-du hire garayn lahayd in America ayaa waxa la ogaaday in uu kooxaysi ku jiro oo xisbigii la dhihi jiray xisbi Islaamic ee maxaakiimta Soomaaliya ay lacag u aruurin jireen asaga iyo dhalinyaro badan ee ay jifo isku xigaan iyo nin sheegta qabaa'ilada daaroodka iyo qabiilo kaleba ninkii saas uu ahaa security FBI-ga qofka background check markii loo diro masaajidada camera loogu xirtaa meel kasta loogu xirtaa ninkii waxa lagu soo ogaaday inuu fundraise u sameeyo ama lacag u suubiyo xisbigii Xisbullaahi la dhihi jiray ee ka shaqayn jiray Soomaaliya ee maxaakiimta hameenoo madow baa la baxay master taakeeyo waayada hameenoo madow lagu la baxay waa adeeg xabsiga lagu gariyay waa adigu lagu soo bacdabay
waa adiga lagu soo karbaashay waa adiga ku soo silcay waa la soo daayay wiilkii saas ahaa San Diego markii la soo saayay masaajidkii laftarkiisa sirtiisa laga soo helay buu yimid habeenkii midnight baa la soo daayay salaadii subax buu masaajidkii ku soo tukaday masaajidkii markuu ku tukaday oo ka qodbeeyay ayaa waxa dhacday wadaadkii waraystay ee la dhihi jiray Maxamed Khadar taakeeyow hadalkayga dhageyso ama fad ama hafadi Soomaali uma baahna tafaraaru Soomaali uma baahna one been ah Soomaali uma baahna in dignitigeeda lagu ciyaaro ruufyaanimadii Mareykan ku geysay inaad la shaqaysid damacdid ku geysay inaad wiilasha Soomaaliyeed oo masaakiinta oo 500 oo wiil aad dhunta laga jaro lacagta aad ugu dirtay dhiigii baa ka daba wareegaya adigu ninkii salaadii subax markuu tukaday boolis baa ugu yimid isku meesha la yiraahdo masjidkii gabadhii uurba u yeelatay hadda San Diego ay degan tahay gabadhii waan ka gaabsanayaa gabadhaas ma raba magaceeda inaan sheego ilmaheedana inaan sheego maadaama anigu aanan ku xadgudbin dumarka ninkii saasa masaajidkii baa lagala baxay xabsigii baa lagu celi xabsigii laguma celinin waxa la yiri soo bax safaaraddan u soconaa sida aad ogtihiin ba waxaan leenahay anaga ciidamo safaaradda qaabilsan in America ninkii safaaradii baa la geeyay waxa lagu yiri adeer qalad baa lagu sii daayay kumana noqonaysid magaalada waa la jeebeeyay waa la kaxeeyay waxa laga tuura Muqdisho saasa ninkii lagu saaray odaygii Maxamed Khadar ahaa oo beelahaas daarood ka soo jeeday iyo hadii la ku rooyahay beelaha kale oo dega maxaa la dhahaa waqooyiga Soomaaliya iyo galbeedka Soomaaliya nimankii ka soo jeeday oo ninkaas la ahaa argagixisada Mareykan qabtay xabsiga lagu tuuray qaar xabsiga ku dhinteen waa soo idin sheegay afkiisa ka sheegay qaarna hadda waa xiran yihiin qaarna waa la tarxiilay nin Pakistan ka mid ahaa Soomaali Pakistan ka timid oo wadanka ka soo gashaa ka mid ahaa ninkii asaga ahaa sidaas ayaa lagu kaxeeyay ninkii asaga ahaa saasaa lagu ceyriyay maantana sidoo afkiisa idin kaga sheegtay wuxuu afkiisa idin kaga sheegtay in la xiray faraha laga jajabiyay waa runtii faraha laga jajabiyay because waxa laga hadalsiinaya ragga uu la shaqeeyo xawaaladaha lacagta la diro waxaan ogsoonahay reer San Diego halkan way iga daawanayaan warfaafinta wuxuu ahaa ilaaladiis qaaska okay waxaad ilaaladiis qaaska ah ayuu ahay maxamed gacmo dheere oo ahaa ninkii wasiirka warfaafinta loo magacaabay xilligii Almahdi Soomaa saas aad ninkaas uu ahaa ilaaladiis ka tirsanaa ninkii markuu meeshaas ku soo galay asagoo tuuto wata qoray ka awooto uu soo galay kadib shaqaalihii magacadooda kala bartay reerahoodu kala barbartay meeshuu nala joogi jiray shaqaalaha waaga saraad Muqdisho ka shaqeey jiray shaqaalaha ka shaqeynay wariyaasha ka shaqeynay waxaan rabnaa badinaad wariyaasha Soomaaliyeed dhan may u dhamaayeen bal si fiican ugu dhaqay horta Soomaali ay u dhamaayeen inta Soomaali ay ka koobanto dhanaa meesha joogtay wax wariye oo dakana qabina ma jirin rag oo daarooda joogay dad hawiyaa joogay dad raxweyna joogay dad dira joogay kullu wala joogay meesha marka inta Soomaali ay ka koobnaayeen shaqaalaha marka aan bisraax u hadlo oo aanan waxba aanan garin ninkan markuu meesha soo galay isla markii wuxuu ku dhaxmilmay shaqaalihii asagoo aad waagaas u daneynayay saxaafadda aad u jeclaa marka wuxuu dhigi jiray halkan wax lagu akhriyaa sidee wax loo akhriyaa aad u ahaa nin active oo dadka inuu dhex gala jecel qorigiisa inuu wadan jiray qorigii kama reebaneen asagoo marka studio la soo gali jiray taasoo qorigiisa wato marka ninkii markii dambe qor hor ma laha nin aqoon hor u laha nin dhisan miyuu ahaa mase nin iska wuxuu ahaa wardiiska taariikhna macnaha intaad ka taqaano oo meesha ka barata asiga absalan wallahi anaga asaga wuxuu noo sheegay anaga hore ma aan aqoon wuxuu noo sheegay inuu ahaan jiray macallin BB ah xilligii dawladda gacanka kadibna qorigaana qaato u dhahay qorigii markii aan qaatay beeshan hadda aan ka soo jeeday ayaan u dagaalamay marka wasiirka ayaan qaraabo hoosanahay wasiirka ayaan u ahaa ilaalo saasuu ninkan nagu soo galay kadibna wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan u diga rogto in aan ku biiro shaqaalaha wasaaradda warfaafinta hal i caawiyo marka madaxa raadiya waxaa ahaa oday la dhihi jiray allah naxariiste dhaashane maxamed faarax dhaashane
ماذا إذا عد تي في راديو مقدشو حمدح كاتري راشنا مدح كا وقيت راديو تي في مجري عملنا مش غير تي في هول قبوها marka waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaa wax dhab u sheego dad Soomaaliyeed meesha ku dhintay dad Soomaaliyeed hadii ninkan walaalkeena uu yahay dambiile oo dambigaas galay oo beelihii laga tirada badnaa ee daarad markaas magaalada ka qaxay uu dhibaateeyay iyo dad kale Soomaaliyeed waxaan inaan bilsariix u hadalno oo Ilaahay ka cabsano run ahaantiina aad sheegto hatta qofta marqaatiga koowaad Cabdisalaam mar labadan kugu cilnaa xusuustaada inaad dib ugu noqoto adoo ka faa'iideysanaya arrintan arrin sahlan maahan nin Soomaaliyeed waaye nin waliba reer caruur haysta waaye inaan ku gefno ama dambi ka galno marno waa nin Soomaaliyeed laakiin hadduu dambi shacabka Soomaaliyeed ka galay qabiilku doona ka gal waxaan inaan bulshada Soomaaliyeed loo cadeeyo marka waxaan rabaa inaad xusuustaada intaad ka barat intii yareed oo taqiin intaad ka barat bal adoo u sii dhacay falaalka iyo sheekada si u dhacday bal waxaan rabaa inaad intaad ka barat inaad noo taabato adoo maasan دي عداد أو ما سنتي أنا قلت الله متر أسوقي سعيد بنا آدنا وأن متقنا كبقى أما أفكر حشوان بجست قفك حقيقة أنا قدي هو إذا كل شيء أداة دم بأمد كجشيد وأن نولا يوم كاس عن لأنه نكاس أمد على قبض دب هذا كوار أيوب جيستي نكني مركو شغالي ساس أقوم ملمي وحال وحري نين عبد الشيء علي أسقبو يقانا الله يرحمه عبد الشيء معناها وهو شغال ننجع لوها مركا ما دام أذكينا أو نقضي وزير وها قام ديره أسيقن وإلى كسوق علي أيها وحلو حيرة كده بشقارها رادي مقدشو كمين نقضي سما ويل أوكي واحد ولا شقينا واحد رادي مقدشو ولا شقينا تابعت قيب تيسعد أضو فاهينا إن شاء الله وحارنا أنا وحيد سيتا أقرأ من مقتل ninkan waxaa barnaamijka ganacsiga nin la yiraahdo oo soo saar ka ahaa oo la dhigi jiray Cabdi Shii Cali Allah u naxariistee xoogayna soo dhawaato jacalana si mikrofoonku ugu dhawaaday Cabdi Shii Cali soo dhaw bravo Cabdi Shii Cali bravo Cabdi Shii Cali nin la yiraahdo oo asaga uu garanayo oo qoladan Soomaalida ee dhahdo Carab Saalax Cabdi Shii Cali marka barnaamijku daadii jiray barnaamijka ganacsiga ayuu ka ahaa برنامج صار يسوي جديد لبعض الكاه الله يرحمه أوكي مركز نكاس أيوه برنامج كله ديارين جري أسوي راعي جري أسيق أمريكا دمبه ودي ديوي دور برنامج ويري بل إلى آخره وتلانتالي أو آخرنا عبد الشيء علي يعني كان صاري كذب عبد الشيء علي وحكوش بدي إنه يهاي نندارات وأنا عرب محمد صالح هو عرب محمد صالح هو وحنا كل شيء بدي إنه دارود واي ولا إن كان بوس كان أنا جاك قاعدين دون المستقبل. معنا هذا الكاس أديك متى نقول كلها. سأد كلها. واجوجنا أنا جوجنا أو كلا دورك جوجنا. مركن إن كان مستقبل كانوا حنا قاعدين مستقبل كأن ونن كاني ونقد دونه نك كغفي عن أما كعد معان أما كحسوس هارس بدن. ساس دراد دينا مدحدا كقاعد دون تعبتي على اللي دون نين كان يا كاكتيف سن نين كان كوري جيني ماشي ساس اويستين marka markuu hadalaas dhigi jiray anaga waxa uu haysanaa ninkani uu ka active sanaan doona uu ka barnaamij raadin badnaan doona uu ka cod macaan waa ka xumahay waa ka go'yay laakiin uu soo noqon doona Cabdisalaam waa ku soo noqotay masanta waa soo noqotay Cabdisalaam Cabdisalaam waa soo noqotay masanta marka waa ka xumahay qadkiisa xogaa إلا أقصى بعض إن شاء الله لكن قد كوسها جدوان إن شاء الله عبد السلام وانك مرقاتك النول أو هذا الله أو ولوا لا تكسبوا ناس إنه يقينوا جوب جوكها لسه شقيق تاريخ وسوي شيء إن شاء الله أو نوصل نقدونا عبد السلام إن شاء الله الساعة كسر نقدونا قد كسر نقدونا اللي أعتبرها بس أنت عبد نوصل أنا عبد السلام وحنج على لهن بدينا ورئيسي حساسية لو واحد ورئيسي وبحي لكن متك منها سوق قادني ومد وكو خيرنا يو إنه هوري إنه أو ما تبحي ورئيسي صار ما بدينا نيجي سمعير وصون قلنا عبد السلام وصون وقت براو عبد السلام قاعد يضم ما ستة وصون وقت عبد السلام وجعل الله يرها براو الله يعز وصون وقت عبد السلام مركا وحال كودا مركا استرتن إنه ماشي كجير دونه هالكاس إيه مركا كسو هالكاس مركا نكان waxaa u maleeyahay inuu tartan gali doono oo Cabdi Shii Cali booska asaga laga qaadi doono ninkii kadib waxaa noo yimid nin asagana Allah yarxamo oo la yiraahdo Abukar Wariye la dhigi jiray asagana oo dhalinyarada kamid ahaa oo asagana la qaxay qoladii u qaxday madaxweynihii raacday ku jiray laakiin asagana uma dhalan beeshaas
laakiin wuxuu iska nin dhalinyaro iska qaxay oo wariyaashii waagaas iyo qaarkood iska raacay laakiin wuxuu ka soo jeeday beel la yiraahdo shiiqaal waaga kaasina magaciisa wariyaas kale magaciisa abukar al dijra abukar yare abukar wariya inta badan ay dijreen soo marka nin aad iyo aad active u ahaa abukar marka abukar dhalinyaradaas uu raacay kadib uu soo noqday abukar noo yimid mahad allah yarxamo oo ahaa madaxa ogeysiiska xafiiska ogeysiiska mahad aadan xasan mahad cadal dijri إيكاد هيك وال وعنج على مركز يقول سعسو كي أول شيء جري مقيس معها كان عتير أبو كرورية عبد الشيعة الشغالة الشغالة ويلك سعيد عرب صالحوها كانين وحوها أبو كرم كلام مقيس يقول كيكون عرب صالح كان عايشك عبد الشيعة علي عبد الشيعة وحوها نكوريها غيبت البرنامج قناعسية قناعسي وقابل سنة رادي مقدش أوكي كاسو عرب صالح أو عن جعلها النوبة قبيل كيسين إن شاء الله حتى لتسأل حسنه وكذا مركا كاس لباس أبو عبد الشيخ علي أبو كروري لباس الشيخ علي عرب صالح عين لبضو مركا وحكي كشقين عين ونكن أوكي هروق صع مركا أيه رادي مقدش كشقين عين مهد آدم حسن اللي راد أصلا وقاعدين وهنجر مدح أوجيسيسك حفيسك أوجيسيسك ما أصلا مهد آدم حسن اللي جرى مهد آدم حسن أيه هو أصلا وقاعدين ogaadeen oo ka soo jeeday asagana wuxuu ahaa madaxa xafiiska ogeysiiska raadiyo muqdisho madaxa ogeysiiska okay waa gartay saddexdaas marka asay toos u shaqeynayeen laftooda soo ma ulama shaqeynayeen macnaha raggaas uu calaameystay waa ma fahamtay asaa calaamadeystay waa gartay wuxuu u haystaa markaas ayuu waa gartay marka xaaladihii qabiilkan aad u kacsan marka xilligaas soo aad u kacsan abukara marka wuxuu ka yimid dhinacaas iyo kismaayo ka yimid marka abukara marka sheekeynayay markaas waxaan taaganahay meel yiraahdo wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona anagoo badan marka abukar wuu noo sheekeynayay hebel baa xag kaga soo tagay hebel baa xag ku soo arkay waxaas uu daldalay marka ninkan wuu soo galay abukar wuxuu arkay waxaas ka sheekeynay marka wuxuu nisbaystay maadaama abukar ilaa dhulkaas tagay uu dhulkaas ka soo waramayo inuu yahay familkaas marka abukar liiskii uu ku darsaday asagana oo dhawaanahan uu soo afjari doono ma fahamtay nin yiraahdo maxamed cali xange allah yarxam asagana waa nin aad iyo aad zaciim u ahaa oo aad iyo aad isugu fiicneen oo laanta afafka dibadda iyo afka Soomaaliga barnaamijyo ka sameyn jiray oo xaqiiqatan xange taariikh dheer gadaalan ka gali doona marka afartaas horta waxay ahaayeen afartii oo sarta dheer oo musawac uu ku dilay hal subax أفرتون هل سوحوا دلي وحاتي عبد الشيخ وعرب محمد صالح أبو كروري أو الشغالة ما هذا آذن أو وقادين إيه محمد علي حانجي أو نم مجرتان مجرتان هادي أفرتاس هل صبح يوصلت ماشي مصوع دير أو بدي يدل كاسون في متقنا أو برا مصوع هذا وش مصوع دير وافهم أفرتاس مصوع سكدري إيه ماشي مصوع والله قري ماشي سكدري الله يرحمه وحاكوسو هنين عبد القادر علي يدلي وأهانين حوالله سجنا سوق مرك عبد القادر علي يدلي عبد القادر علي يدلي وأنا حوالله سفع أيه أوكي كانوا لمبر شناضوه وعرّا مرك ديلكس ودعين أنا ما شرحه ديلكس ودعين لو waxaan mugtay laftii caawa waxaan dhageysan doonaa ummadoodan aan dhageysanay Soomaaliyeed meel walba ay joogaan marka waxaan rabaa inaad bisarax aad qolo nin walba si uu dilay iyo taariikhda xasuusto iyo sababtu iyo xilligu dilay iyo waqtiyada kala duwanaa xaaladaas waqtigaas waxa waqti xaaladu xun tahay marka insha Allah ku noqoba insha Allah maasan horta ninkani marka ugu horeysay aroor hore waxaa shaqada soo galay ninka la yiraahdo Allah naxariistay Mahad Aadan Xasan Mahad Cabde ما حستا تاريخ ما حستا تاريخ وابريل اي هيد سيدد سغال كميلاس هيد لبد كون سكول ابريل هو كون سغال بوساشي كودي كون سغال بوغل سغاشي كود ابريل كون سغال سغاشي كود هروق سوعي marka mahad ayaa aroortor shaqada soo galay 8 barka meelahaas ay ahayd marka mahad cidna ma tabin sababtoo ilaalada irid ilaalinayso ayuu subax aroortii la soo fariistay هيه ما هذو قعنت قبصدي ماشى صول لك قلي مركا
dhalinyaro marka meesha taagnaa noo sheegta annaga waxaan soo galnay 10kii waxaa la yidhi mahad saaka xafiiska ma uusan furin dhalinyarada iridda taagnaa la taagneed oo dibaddii la taagnaayeen waa gartay taakiyaa wuu ku jiray bes marka mahad la waayey oo saaka uusan meesha furin xafiiska ogeysiska uusan furin iyo dhexdii ogeysiska uusan furin marka shaki yaraa bilowday mahad ma laabanine shaquu usoo ka lahay xaguu ka baxay haye kadib abukar weriye haddana soo galay abukar weriye iriddu ka qabsaday haddana meeshuu la galay wuxuu la galaa mustawcuu la galaa meesha kore meesha musawcuu la galaa meeshaasuu kusoo qaarijinaya ninkan waa gartay wuxuu dilay maa dilay abukar weriyu dilay waa hal subax waa bisha waa abril 91 haye haru socod kadib aniga iyo waxaa nimid allah yaraxmo oo ila seexday habeenkaas xaafadda ila joogay maxamed cali xaangi maxamed cali xaangi wuxuu ahaa ninka tiftiraha afka oo majarteen ahaa luqadaha qalaad iyo luqadaha soomaaliga waa gartay marka barnaamijyo fara badan uu samayn jiray allah yaraxmo xaangi markay dagaaladii dhaceenba anuu ii soo guuray wuxuu yidhi niyow wuxuu aad u jeclaa aniga markaas ma fahamsanayn xaqiiqatan ma fahamsanayn 2 mitir ay sugayso marka barnaamij sameynayno wuxuu dhihi jiray aniga asaga ama ummad kale aan la sameynayo wuxuu dhihi jiray heesta aad ku soo qatimaysid cabdisalaan oo ha ahaato heestii maxamed calciga waa gartay cirkaa dheer dhulkaa dheer heestaasuu saari jiray ma fahamta waa gartay marka maxamed cali xaangi waa joogaa subaxaas asna labadiina waa timaadeen aniga waa isla nimid markaan isla nimid waxaa la yidhi wasaaradda boostada ayaa riboort ka jira dhaashana allah u naxariistay aa yidhi cabdisalaan meeshaad ka laabo meeshaas riboort nooga soo qaado wasaaradda boostada isgaarsiinta waxa laga qabanaya shaqo xagga riboort nooga soo qaado waa gartay waa laabtay xaanga marka meesha ugu tegay ilaan wasaaraddu dhex joogaa intaasoo boqoloo shaqaalo dhex joogaa marka cabsi kama qabo sama معناه دارتك الله وارسنا مركا هذول لفتها وحاوي امني جيستان مربى حكومه ترجعش والله صعطه يعني مربى كوريسا كودا شقينا ها نينكي اسمينا كودا شقينا وهل ميلا وصوت قلنا hadana markaan bixeen gurigeyga wada tagnaa gurigeyga ku wada noolnahay marka xaangi aan cabsi kama qabin intuu aan ila joogo wax cabsiin kama qabin ma fahantay waa gartay intuu wasaaradda joogana waxaan isleeyahay intaas oo milyan oo shaqaalaha dhex jooga problem ma dhacayo ma fahantay waa gartay على كل حال ننكي هدو الله كو إدمايو وحا حتى إلهي بدبادي نين اللي يراهدو عبد الساق حرسي حسن وأساقنا مجرتينها إيا قبر أيضا ماشي كسا قين جرتي رق أيا الله قبصدي عبد الساق أيوه إنو كحيستر ربي عبد الساق حرسي حسن حرسي حسن ومجرتينها مجرتينها ننكي هذا على كل حال يعني هذا كان اسكو ملغنين على كل رقي مركو أفرتاس كسو تقاسلوسي أيو هرت حانجي عبد الشيخ علي ومركز دكنا كبي أيو أصول لابت واقرت مركز سيدي حوالي مو ودنا ذاك معناها وحان ربا صادق أنا دعسو حسن أفهمان ربا ذاك أنا دعسان أفهمان ninkan dadkii uu maana qof maalmo mar wadana wuxuu geysanaa meesha kore musawaca ka dusha uu geena uu soo dilaa rasaasta soo la maqlima meesha soo ma meesha raadi muqdisho soo rasaasta la maqlima say ku dhici kartaa in qof inta la wato la dilo mid kale hadan la wato la dilo waxaan rabaa bal inay bil sarax bal noogu si taban noogu sheegto waa su'aala la meesha kiimide horta sarta musawaca عمل الله فولا يا جنجال كوي مثل لقى سوق قالوا هوستيل ماشي دلا ما فهم مركي يرد جنجال كلا قالوا وزارة الرابط قانون حي كسر هرجة عيدك البوليس كسر هرجة ميل مقاعد ميل أو كافترية شاه لقى عب شغالها كعبانية لهات شغالها جنجال يرا كل جنا أو مصوع لقى قالوا سرقة لقى قالوا مصوع اللي هو جنجال لهات مركي جنجال كاسو لقى لا ميل برحض وماشي إسلام ماشي أو يكتب ما فهم واقر مركا هذا الله كويد ما يونيكي سيداس أيوه ورتا محمد علي من كان يرادو مهد أبوكر وحوكها لي جنجال كش قدها ما بسوق قلنا ما فهمت واقرت
oo qof ogaan karta ma jirto ganjaalka weyn oo aragtay واي رصاص على رصاص تدين على صور الله مغل مع عبد السلام سيكون على رصاص ما rasaas dee wadankii waa iska USC waagaas xabadaha iska dhacayeen mana la tuhmeynin mid kale ninkan afsaaro kaga dhigay degdeg meeshuu ku dilay wax aroor hore ahayd qof tuhunta ma jirto labadaas aroortii hore uu kaga taqalusay haye okay markii la goorma ogaad doontii marka adigu goorma ogaad doontii ilaa maalintii intaas adiga saaxiibka adoo shaqo ku maqana saaxiibka la cunay saad sheegayso ninka ah maxamed cali xaangiye ugu dambeeyay la cunay marka afartaas markuu cunay kadib maxaa dhacay bal intii wixii dhacay bal noo sheeg kadib aniga horta 10 subaxnimo soo galay marka 10 soo galay Allah ya raxmad dhaashanay ayaa irid iga hor yimid bash barxadda iga hor yimid oo wasaaradda faafinta gudaha marka loo soo galo markaas wuxuu ugu dhaaniyo orod carar wasaaradda waxa tagtaa boostada isgaarsiinta barnaamijkaas nooga soo qaad waa gartay marka xango ila socod xango waxaan ku dhahay niyo halkan iska sii fariisto dhalinyarada iska sii sheekayso waa ku soo laabana xaggan tagaa markaas uu dhamay haddaan halkan joogo cabsi ma qabo iska bax haye waa iskaga soo baxay xaggaasaan tagay marka xagga ka soo laabtay yaa shaqaalihii oo buuqayaan u imid meeqa saac soo laabatay marka dilku waqti u dhacay soo laabtay adi meeqa saac soo noqotay waxaan rabaa ilaa adduunyada dhageysanaysa wixii inaan dhabta ka inaan wixii dhabtiisa sida ahayn xasuusano 6 saac ama 12 duhurnimo soo laabtay markaan soo laabtay meeshuu kacsanaan imid cabdiqaadir cali idlahan Allah naxariistay iyo cabdi sheekh doon nageey iyo rag far badan meeshii walaacayo qalqalina shaqaale far badan iska dab wareega meesha ugu imid iyo oday liraado cali waranto oo madaxa farsamo yaqaanada ahaa iyo dadkaas hadda manooliin raalo dadkaas hadda manooliin oo hadda aad sheegayso oo maalinkaas marqaatiga nool ahaa wax ma ka nooliin ma noo magacaabi kartaa xilligaas taariikhdaas wuxuu dhacay dadka jooga oo nool oo hadda raadi muqdisho ka shaqeeya ama adduunyada meel kale ka jooga si aan waraysi u xoogaysto horta wallaahi rag fara badan aan nool hadda cabdi sheekh doon nogeeyo kala Allah raxmo duusan dhiman hadda saacadaha hadda aan taagana wuu noolaa wuuna joogaa hadda saan jeclahay waxaa subaxaasan sheegaa subax dhibka dhacay dadka jooga u baahanahay oo si aan u la xiriirno aad wuu joogay cabdi sheekh doon nogey wuu joogay waana ninka kaliya ka dagaalamay sida xaqiiqda ah waxaa kaloo joogay nin la yiraahdo cabdiqaadir maxamuud walaayo wuu joogay waxaa joogay oo ninkan hadda cabdirasaaq xirsi xasan ka hadda aan kuu sheegay wuu joogay hadda ma inkastoo maqal fiilan ayuu ku nool yahay waa inaan raadiyo waayo ma hayo ciwaankiisa laakiin rag fara badanaa joogay oo waagaas noolaa hadda shaqaalihii in la shaqeynaa waaye dadka shaqaalaha oo maalinkaas dhacdadaas jooga oo adigu aad ka mid ahayd oo aan rabnaa haddii aad xasuusleeda inaad xasuustaas insha allah bal inaad ku noqoto si aan waxaan rabnaa dadka kale laftooda aan u helno dhacdada see u dhacday oo dhabta ah waxyaabaha ka tagta ama ilowday inaan xasuusanno oo haddii ay suuragal tahay bal mar labaad ku noqo si bal haddii xasuustaada ay suuragal tahay maame waa xasuustaa waxaa joogay nin liraa injineer cabdullaahi yuusuf oo haddeertaan muqdisho joogo rag fara badanaa joogay raggaasi waxaa xaqiiq ah dadkan adduunyada sideeda 2 mitir ah dadka sugayso ma fahamta inuu qofka been ka sheega ma wuxuu u taagnaa ama uu marqaati ka ahaa afartaasi nin kadib waatuu wadana soo laabtay marka annaga waxaan ku xaqiijinay ninkan la yiraahdo oo aad iyo aad kiiska u fashiliyay inuu asaga ka dambeeyo kiiska cabdi sheekh cali ayuurani iyo nakaan u dhahay cabdi sheekh cali wuu dareemay inuu labadii kala waayay saaxiibadiis haddana uu xaange asagoo qasbayo laba wiil oo kaleentoodna ay xaange garabka ka qabteen ay jiidayaan ayuu cabdi sheekh cali indhaha saaray suu cabdi sheekh cali sheega Allah yarxam intuusan dhiman cabdi sheekh cali ninkan ayuu soo jiiday dhalinyaro fara badan ku soo yaacay ninka xagee u daa markaasuu dhaw ninkan iyo mataqaana dhexdeena ka baxay hubeysay markaas ninkan hubeysay qori wataa maqri wataa wiiloo kala la socotay cabdi sheekh cali wuu qalqalay markaasuu dhaawrniyo ninka xaanku hadda halkan la galay ninkan iga reeba asagoo dhahayo ayaa uu asagana qolka la galay isla markaas xabadihii intii cabdi sheekh doon nageeyey iyo saraakiil fara badan oo meesha ka dhaweyd ku soo yaacayeen xabadihii uu qabadsiiyey markaas xabadihii si fiican loo maqlay gudaha la galeen waxaa la arkay mahad iyo abuukar iyo xaange iyo cabdi sheekh cali markaas u dambeeyey uu sii jiiday afartooda markaas raxdooda loogu tagay meesha afartooda hal maal afartooda marka ma hal maal la duugay aaskaas ku dhacay xaggee lagu duugay adigoo maasan horta waa arrin muhiim ah saa ii weydiisay ninkii isla markii
قصقص nin la yiraahdo generaal qasqas inaad taqaana jeclahay عثمان قصقص تلحيقك ciidanka booliisku ahaye ayaa markaasi meesha marayay oo xeradii sii galayay meeshuu arkay wasaaradda warfaafinta irideeda la isku dagaalayo la isku buuqayo asaga ilaalihiis way istaageen way soo degeen sidee wax u jiraan la yiri waxa la yiri raggaan oo shaqaalaha ka tirsanaya meesha meedkooda lagu helay ninkan ayaana ka dambeeyay kiiska wuu inkiray isla markii uu cararay meel uu galaa la waayay saaxiibadiisa gaariga dabada u soo marka gasgas meesha wuxuu kiiskan waa la baarayaa xiriirkiisu iska sii galay xoogaa kadib waxaa noo yimid nin la yiraahdo allah yarxamu uu dhintay gentleman inaad taqaana malay oday siyaasi ahaa jiray si fiican kiiskan waa la baarayaa isdejiya shaqaalihii waxaas uu gudbeeyey nimankii markii xoogaa gobolkii dhici rabay ayay gaari ku qaadeen meedadkii waxay ku daadiyeen waddada warshadaha oo ma la aasin meeshii ku daadiyeen way ka soo tageen yaa meydkaas yaa qaaday oo kusoo baabuurta intuu ku qaaday meydkii jidka soddon kusoo daadina taas baa ii xaqiiji waxaa kusoo daadinaya beeshuu asaga ka dhashay raggii meesha ka joogay oo mooryaanta ahaa oo irida taagnayd okay oo raadiyaa haystay waa fahmay waa beesha Saleymaan waa haye wax ma ka xasuustaa dadka saas weegas xilligaas meesha ka shaqeynayay oo asiga la shaqeynayay wallahi waa ciidan waxa waa USC ahayd ciidamo qoryo watay ahaayeen wax magacooda lama garan karin malaayada marka asaga naga soo dhaxgalay asagiina soo dhaxgalanana wuxuu noo soo dhaxgalay problemkan ma fahamtay waa gad asiga hore shaqaale dawlad aha hore muusu shaqeey suu noo sheegay macallin iskuul BB ba ahaan jiray nagu dhax macallin BB na hayo okay aye marka dilkaasu waxay noqdeen marka saa ishat afar wuxuu dilay Cabdirashiid wuxuu dilaa tiri ninka la yiraahdo Cabdirashiid oo ah Arab Maxamed Saalax wuxuu dilay Abuukar Wari oo shaqaalaha maal aadan oo ahaa asigana ogaadeen waxa uu dilay Maxamed Cali Xaangi oo ahaa majarteen afartaas uu dilay waxaan rabaa marka Cabdiqaadir Cali Iile iyo Cabdisaaq Xirsi ayuu ma ka fakadeen see wuxuu dhacay marayga bal loo xaqiijisay Cabdisaaq ninka leeyahay Cabdiqaadir Cali Iile iyo xawaallah iyo Cabdisaaq Xirsi Xasan Cabdiqaadir Cali Iile Allah u naxariisto wuxuu ahaa tafaftiraha raadiyo Muqdisho ahaa markaas كهر هو هنجري حلا دولتك عنك حتى وها وافهم ايه عبد القادر علي إيدلي وحو تاغنا وزارة الرفاهية ماشي لقى قلوات تقانا ماليرو شبه كو آدن مارت او بالكون عمل عبال شبه marka jaranjarta la fuulo shub ayaa meesha dushaada ah sama marka shubkaasuu taagnaa ninkanina gacma dheer ayaa wuxuu u soo qoray maadaama uu yiri wax xanuunsanahay lacag yar oo gunna ah oo liira farmashiyaha kaga soo iibso camal lacagtii marka wuxuu ku socotay nin liira Cali Baay oo ahaan jiray ninka faaladii u qori jiray oo markaas ahaa uu qaabilsanaha dhaqaalaha wasaaradda warfaafinta waa gartay marka waxaa liiri warqadan qaado 100 iyo xoogaa kun meel hal milyan wax saas ah markaas liiri orod Cali Baay ula tab kala ka qaada lacagtan ya asaa ula tagaa تاكي مركو حولي يمد علي باي وحكو لها اي العقد با وزير يسو قري سي ومالين كلا يا مركز معها مالنت ورقان دلما او نيكي اسو كاذب عبد السلام ايدا بلتي ارين كلا حمار مشكله كلا نيكي اسو ددك لاي اي ودان دخ جوغا ددك ميا waxana wasaaradii wali ka shaqeeyna oo dadkii uu laayay shaqaalihii wasaaradda warfaafinta asigoo laayay haddana ka dhex shaqeynaa miya oo ka dhex shaqeynaa oo waliba ilaaladii wasiirka yaa wali oo ilaalada wasiirkaas magaciisa ku cilmi labaad ka kula maqnaane maxamed maxamuud gacma dheer ah yiraahdaa waa wasaarihii hore oo xilliga Cabdullaahi Yuusuf waa daba wasaare noqday may waxaa madaxweyne ahay Cali Mahdi waxaan ra'iisul wasaare ahay kama hadlay xilli dambe oo ra'iisul wasaare loo magacaabay oo Sacawaay xilli oo Sacawaay maxamed gacma dheer laftii nooliya sax ra'iisul wasaare ku meel gaar ah dadka soo mar sax bravo waa fahmay marka afartaas soo dilay ayay marka tan sheekadan kala dood marka qisadankaas ku dhacday marka noo dhameystir qisadan wasiirka ayaa wuxuu soo saxay lacag yar oo ninkan dhaqtar ku tagay boqolaal ma ahayd mise milyan wax saas ahayd Cali Baay ayuu u qaabilsanaa wasaaradda warfaafinta qasnaji Cali Baay uu tagaaliyay ka qaado lacagtan Cali Baay uu yimid Cali Baay wuxuu yiri wax lacag oo mataqaana soo sarrif habeeraatay ma jirto lacag kaash ma hayo laakiin daawadan hadda u jiran tahay anaa kuu soo gadaa magaceediisii inta ku soo hartan oo dhaqaalaan oo ku siinaya laakiin marka hore hadda wax kaash ma hayo markaas yiri maaniga asaas ugu leedahay uu carray iriduu tagay iridii wuxuu ka soo qaatay mid meesha joogo qor ka soo qaatay
laba wiil oo qoryo watan ay ka soo daba carareen jaranjarta uu soo fuulay cali baay wuxuu ku jiraa xafiiska iridda waxaa taagan nin la yidhaahdo cabdiqaadir cali iid allah yaraxmo marka wuxuu is yiri intaad gudaha gelin xabad inuu qoriga shaqeynayo in kale xabad barowaa rid marka wuxuu ka qaldantay meesha inay taasho xabadii barowada ahayd intuusan cirka u ridin ayuu shubki ku dhuftay xabadii way soo laabatay cabdiqaadir madax kaga dhacday cabdiqaadir goobtuu ku dhintay allah yaraxmo cabdiqaadir waa qofkii shanaad uu dilaayo ha cabdiqaadir markuu meesha ku dhaco dhintay ninkii wuu falka naxay wuu cararay meesha qaybta dambe cabdiqaadir waa xawaale suk waa isla fahamsanaa cabdiqaadir waa xawaale kuwan kale waxay lahayn dad oo beelahoodu macnaha daaradkii qaxay qaybo ka mida iyo dad uu maxamed saalaxnina iyo intaas ay yar shaqaale ahaayeen marka laakiin tan wiilkan waa wiil uu ama waaso ama cabsigeli uu islahaa laakiin ay xabadda ku fakatay marka xawaaladu noqday ma sii jooga haddana kuwii hore waa sii jooga aragnay marka ninkan xawaalada markuu dilay maxaa dhacay marka uu ninkan dilay allah yaraxmo isla markaas waxaa meesha marayay oo markaasna ahaa gudoomiyaha gobolka ahaa cumar xaashi allah yaraxmo inaa maqashin kale waa sax cumar xaashaye meesha baarlamaanka ilaa iyo guriga cali mahdi ciidamadii joogana waxay ahaayeen beesha uu ka soo jeedo cabdiqaadir cali iid isla markay maqleen ninkaana la dilay way soo yaaceen meeshay soo galeen waa garta xawaalihii waa xawaalihii markay meesha soo galeen ayagoo hub fara badan watay iyo baabuur fara badan waxaa la harqiyey qoladii uu taakeeye la jooga meesha ayaga dhanba waxay ku ahaayeen 30 iyo waxsaas wiilay ku ahaayeen 300 oo ciidana timid oo familkii cabdiqaadir cali iid allah yaraxmo waa garta dhulkii dhan ay qabsadeen waxay dhaheen wax nuuxsan kara ma laha taakeeyihii marka wasaaraddu ka dhex baxay madaxtooyadu galay isla markiiba intuu qoriga tuura marka madaxtooyada xilligaas salemaanka dhinaca ka haysta madaxtooyada markaas sacad haysta may sacadaa joogay laakiin ciidamadu dhex galay markaasuu war aniga reerkaasaan ahay xawaalda ay dili rabo hallii badbaaji ma fahamta waa gartay bes meeshii ku hayeen xawaalihii dhalinyaro meeshii joogtay oo qoryo wadatay oo kasoo oo taakee la socotay waxay ku arurseen gawaarida waxay dhaheen iidda keligiis lama aasayo nimankaana lala aasaya waa garta hurwaayaan geysanaynaa hotel garguurtaan geysanaynaa marka raggana lala aasaya iidle midka way qaateen raggana gacnahay ka xirteen baabuurkii ku qaadeen waa garta cumar xaashi allah yaraxmo iyo rag la socday ahaayeen way qaateen hurwaayay geeyeen saacado kadib galbihii camal ay soo sii daayeen ee dhaheen orda dadka familka marka loo geeyaa layidhi malaha nimankani ma rabno ninkii wax dilaan rabnaa ma fahamta waa garta nimankii waa la iska soo sii daayey taake ma soo noqi taake marka dibdib kugu soo noqdo ma soo noqon karo sababtoo ah isla markiiba xawaalihii waxay sameeyeen ciidamadii USC meesha jooga ayay rag ku darsadeen ma fahamta waxay baabuuri soo dhigteen waxay dhaheen ilaalada meeshaan wasaaraddan ka mid noqon doonaa ninkaas ayaan ka dhex raadsanaynaa meeshaan joogaynaa waa garta waagaasna wax oo protocol ma jirin wax meesha ka eri kara ma jirin qof kasta meeshay tiraado inta ilaalo ka naqana qof u diidays mal meesha iska fariisteen ma fahamta haye taakay marka meesha uu dareemay inay xaaladdu xun tahay kuma soo noqon maalintaasoo noogu dambeysay isla marka waxaan maqalnay ninkii Kenya uu orod ku tagay Kenya markuu orod ku tagay isla markiiba islaan process Canada u xareysay oo meesha ka helay oo tiri guurso islaantii malaha process ciyaalkeedu kula xareysay maqalnay sidii uu Canada ku galay ma fahamta Canada adigu wadada Mareykanka ma Canada meesha hata xilligaas marka wuxuu galay Mareykanka kadib ma Canada galay kadib markaan ogaatay saasi ku ogaatay laftaada cabsanaan xilligaas dad yiraahayeen saad ku ogaatay inuu taakii yahay xaalad bal si fiican ugu sharax masa saad ku ogaatay bal arinta ogaansho oo noocay markuu hadda social media soo gala mase social media markuu soo galaa social media markuu soo gal ninkan waa aqaan wajigiisa waa aqaan nin iga dhumaayo ma ahaan codkiisa waa aqaan waa asagii wali wax iska bedelay habeer